dalkaasi UK waxaa laga bilaabi doonaa tijaabada in daawada malaariyada ay ka hortagi karto safmarka COVID-19 iyo in kale waxaana laga bilaabi doonaa Britain iyo sidoo kale Oxford. Daawooyinka malaariyada ee kalaha chloroquine iyo sidoo kale hydroxychloroquine ayaa waxaa lagu tijaabin doonaa in ka badan 40,000 oo kamid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala Yurub, Afrika, Aasiya iyo Koonfurta Ameerika. Dhammaantood dadka ka qayb qaadan doona tijaabada howlwadeenada caafimaadka ee la kulmay bukaanadii uu ku dhacay COVID-19 ama garan karno inay daawada chloroquine iyo hydroxychloroquine ay ka hortagi karto COVID-19 sida waxa yiri mid kamid ah howlwadeenada caafimaadka Dr. Nicholas White. Arrintan ayaa imanaysa xilli uu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu isticmaalo daawada loo yaqaano chloroquine inkastoo ay saraakiisha caafimaadku ay ka digayeen daawadan in loo isticmaalo fayraskaasi corona. weli ma cadda daawada loo isticmaali karo fayraskaasi corona. dhakhaatiirta adduunkuna kuma aysan guuleysan daawada rasmiga ee ka hortagi karta fayraska safmarka ee COVID-19. Xamse Dabaare, Telefishinka Star.